بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 24 bisha koowaad 2022 waxaa furantay maxkamaddii ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn iyadoo uu furmay kiis ciqaab oo loo haystay maxaabiis adigu kulli bay isdaba joogto hadda 6 ka mid ah baa furantay laakiin kulli way isdaba joogaysaa marka waxa weeye insha Allah maantana furitaankii koowaad ee maxkamadda waalidiintii maxaabiista iyo baa waxay codsadeen in ay qabsanayaan qareemo soo diyaar garoobiyaan oo waqti la siiyo codsigaas dartiis waxay siisay maxkamaddu 2 bari oo ah 25 iyo 26 bisha koowaad 2022 wixii ka dambeeyana insha Allah maxkamaddu waa inoo furmaysaa waana soconaysaa wabillahi tawfiiq